Somaliland ayaa uga digtay dawladda Soomaaliya inay u soo dirto deegaanadeeda diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa xilli shalay ay hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya laba diyaaradood oo loogu talagalay in ay buufiyaan ayaxa saameynta ba'an ku yeeshay dalagyada Soomaaliya. magaalada Hargeysa waxaa shir jiraad ku qabtay maanta wasiirka beeraha ee Somaliland Axmed Muumin Said isagoona sheegay in arrintaasi aysan sameyn karin ama aysan ku dhaqaaqi karin dawladda federaalka. diyaaradaha hay'adda FAO muddo imika 3 bilooda ayaan waxaanu ka shaqeynaysay inuu helayn laba diyaaradood oo aan kula tacaalno ayaxan ku habsaday Somaliland. waxaanu runtii ka helnay hay'ad Mareykan oo USAID la yiraahdo ayaa bixisay inay Somaliland ka caawiso laba diyaaradood waxayna soo dhex marisay hay'adaasi FAO oo aan runtii wada shaqeyn aanu leenahay wasaaradda beeraha muddada 3 bilooda ee ugu dambeeyay waxaanu ka wada shaqeynay hay'adda FAO iyo USAID waxaanu ka wada shaqeynay shaqooyin badan oo ay ka tahay diyaaradahan dawooyinka ay isticmaali lahaayeen oo muddo hore aanu saxaafadda la wadaagnay oo aanu keenay Somaliland oo diyaarad gaar ah noo keenay waanu ka soo dejinay madaarka Ciidaha International Airport waxayguna taa noogu xigtay inaanu diyaarsanay muxuu ahaayay diyaaradahaasi labada diyaaradood ah meelihii ay madaarka ka digay ay baakinka ay madaarka ay ka joogsan lahaayeen oo sii diyaarinay staffka ilaalin lahaa diyaaradaha oo aanu diyaarinay diyaaradaha oo laba xabba ahaa oo USAID noo kareysay oo ay soo marisay lacagtan ay soo marisay FAO waxa diyaarad walba la socda 3 laba duuliye iyo nin farsamo iyo xubin farsamo yaqaan waxaan golaha wasiirada ka sheegay in lixda shaqaalaha diyaarada la socda anan maadaama xanuun uu jira adduunyada hadda imika xanuun jiro in madaarka lagu baaro oo xamadooda la eego laakiin aan la karantiinayn 14 cisho maadaama ay diyaaradu nagu joogaan kiro waa diyaarada madax bannaan oo shirkado gaar leeyihiin oo ay FAO muddo badan shaacisay oo markii dambe ay soo heshay waxaan geeyay runtii madaxweynaha oo isaguna gacan iga siinay iyo golaha wasiirada waxaanu isla garanay in cashuur dhaaf loo sameeyo in staffka diyaaradaha ilaalin loo sameeyo in shaqaalaha la socda 6 xubnood aan la karantiinimeyn oo iyaga laftooda xumadooda iyo la baaro markay madaarka yimaadaan ay ka soo degaan waxaan u diyaarinay guriga ay gali lahaayeen waxaan u diyaarinay staffka ilaalin lahaa ee diyaaradaha iyo